madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha madaxweynaha ee maamulka dalka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhaliilo u soo jeediyay golaha baarlamaanka Somaliland isagoo mudanayaasha ku dhaliilay muddada ay ku fadhiyeen kuraasta oo aad u badan isla markaasna u baahan in si wadajir ah looga hortago sida uu hadalka u dhigay si looga baxo buu yiri muranada ka yimaada mudanayaasha golaha baarlamaanka Somaliland haddaynan afkaar midaysan ku wajihin midna marwada kursigeeda u fadhiyo ka cadeen kasoo fadhiistay 4 sanadood iyo ka fadhiishay 10 sano haddii uu helo jaalis laga helo intuu la qaybin kara iyo qolay loo kala samayn kara iyo kolba xisbi meel u gaaba uu ku dagaalamay si kursiga u raacsan laakiin waxa ka kici karay waa qaar oo gartay inuu maanta way nagu ceeb qaranka Soomaaliland waa ku ceeb hay'adii sharci dejinta oo saddex sasha maraysa shay todoba oo 4 sano maraysa marka dimuqraadiyadda bar wax ku tahay bar ceeb ku tahay oo fool madow ku tahay sababta dimuqraadiyadda waxay sameeyeen qoraashada isbedelaan waxay sameeyeen madaxweyne isbedelaan laakiin se qoraashada dejintu inuu mid fadhiyo 6 sanadood mid fadhiyo 4 sanadood bar bay ugu tahay qaranka Soomaaliland taaro waxa u baahan tahay farkii fool ma dhacday loo diyaar garoobo sida ay maartay doorasho xoolo xalaal loogu diyaar garoob lahaa intii wax wanaagsan wadada taageerahaydeen inta inaga caddaysana maartay dhowr soo jeesanahaydeen si kastaba te baarlamaanka Somaliland ay badiba shacabka iyo asxaabta qarankuba ku dhaliilaan muddada ay ku fadhiyeen kuraasta baarlamaanka Somaliland waa Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa.